ما سند أيان لحسين عبدي مدن قدومية وحنجع علينا كويديو لكلن كاجا مدحونا الدولة الفدرالك هي وزير كريمها الدولة فوسي يوسف حاجي آدم محوك صاب سنة بسم الله الرحمن الرحيم horta waxa weeye arintu waxa weeye annaga cid ahaan xaflad baan ku lahayn bilmaham madaxweynuhuna xaflad buu ku lahaa oo jaaliyada Soomaaliya ayaa casuuntay marka maadaama dad magaalada jooga ay yihiin dadka reer Soomaaliland iyo jaaliyada Soomaaliya saaxiibna ka dhaxaysa marka niman cid ka tirsan iyo kulmiye ka tirsan oo Muuse kamid ah gudoomiyaha bilmaham ee kulmiye ayaa marka yiri waxa madaxweynuhu codsaday inaan salaano marka noo yimaadeen waxay dhaaheen madaxweynaha baa halkan Soomaaliya joogay waxay doonayaan is salaantaan marka waxaan nidhi wax noo socda xafladiyadii ana baa la yiri u tago soo salaan inaga soo salaan marka way qaadeen waxay keenay xafladii waa joogtay adna waxaan filayaa dadkii filimada qaaday baafo kamid ahayd oo meesha isku salaanay dawaan salaamuun madaxweynaha iyo wasiirkii difaaca iyo xaaskii madaxweynaha iyo damiiskii fadhiyeen ayaa yara fariista watan fadhiyo su'aal baan weydiiyay waxay yiraahdeen su'aal baan weydiiyay waxaan ka warnaa doorashadii shirkii London waxayna shirku noo fiicnaa laakiin intii baa naga maqneed ana waxaan malaha hadaan idin nimaadna waa duul lahaydeen erka gaadnaydeen kalmaadii ku qosqosliyeen marka nala cashay bay yiraahdeen waxaan ma waxay soo qotay xafladii wada salaam bay كلن كاجا مركا مدحوينها iyo aad u timid Somaliland aad bay ugu carotay dabcan wasiirka warfaafinta Somaliland waa uu ka hadlay maanta marka maxaad is leedahay horka marka hore waa ka careysiyay horta waxa weeye meeshan waxaan ka xumay anigu wala hadlaay waxaan ka xumay waxa muuqanaysa aqoon darada dawladda Somaliland wasiiradeeda inaanay aqoon lahayn macaaganaysa capacity wasiirnimo lahayn adduunka internationalkeeda iyo aan nidaamada kala aqoonin gees wuxuu ka leeyahay wasiirku mandate uma la faysan la kulmo madaxweynaha mandate oo leh albaabka sagaraacaya halka waxa ka qaldan inaanu aan xusbi u madax lahay oo siyaasad gaar ah yeelan karno oo toodi ka duwan sida Yurub u lahaayeen markii mucaaradka ahaayeen shirkii loogu yeeray dawladda Somaliland Real marka madaxda ka ahaa ee Mareykanka ninkii conference-ka loo jeeday Donald Bain dawladdu diiday wakii Siinaay ka qayb galay isagoo tagay waa ku yidhi ma soo geli kartay ceebta ka qaaday yani qolada kulmiye oo marka halka waxa ka muuqata ahad moodo inuu masiirsan yahay leeyahay muxuu Faysal oo kulmiye madaxweynaha la kulmi lahaay marka aniga Somaliland iyo aniga marka labada la isku keego aniga iyo la ii diray Faysal naga ilaali marka shirka tagino shacab waxna Faysal aan ku aaminsanahay shacabku uu yahay aniga Xasan Sheekh on salaamay oo nin tala naga dhaxaysa tahay qofka markay wax ka dhaxayaan saaxiibnimo laga sameeyay cadownimo laga sameeyo shacbiga halka joogay xaalada bayku waa joogay si ugu farxeen marka uu kulaas 10 milyan ka soo qayb galay shacbiga public ala kale qarqaansanaya marka naiifnimada iyo jahliga ka muuqda reer Somaliland madaxdiisa ay horta oo ka muuqata ay horta nimankan ka shafeen waana ceeb nin baan salaamay madaxweynaha salaamay oo talaaba laga qaadaya waxay tusaysaa inay juhalayiin wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay inaad ka beerdhay wadadii gooni-sutaaga Somaliland ma isleedahay marka la kulanka dawladda federaalka waxay carqalad ku noqon kartaa gooni-sutaaga Somaliland iyo ictiraaf raadinteeda qof aqli waxa uu sheegay qof salaamay ma mabda'u bedelka qadiyada hadii saa uba jilcisan tahay oo ay hadii qof salaamay qadiyada burburiso qadiyadu ma marka ma waxa jiray shuruuc diidaysa in aan la kulmin siyaasiyiinta Soomaaliya ما شروع جريتا إن سياسيين تسكو صعوبة باجرتا لكن مدحوينها Somaliland markii loo dabaaldegay sanad guuradii afartanaadii af Soomaaliga Djibouti ayuu tagay Xasan Sheekhna waa yimi geela wada casuumay way wada fariisteen way salaameen tafawdo kamaan anagu macaarida tafawdo kamaan sameeyeen marka waxa ka moodayn leeyihiin anagu baa cid salaami kareedu kuma salaami kartaan ayaad moodaa laakiin in anaga iyo siinayaan gudboonahay laba gudoomiye xusbinahay laba xusb kale oo kala siyaasad noqon karno ayaanu gana jaaliga ay hortaaya wasiirka warfaafinta wax kale uu sheegay in dawladda Somaliland iyo shacabkaba
ay go-aan cad ka qaadan doonaan la kulankaaga dowladda federaalka marka maxaad is leedahay waa lagu qaadi doonaa waxaa tahay gudoomiyihii mucaaradka xisbiga UCID Somaliland dabcan waa tegaysaa markaad tagto marka Hargeysa maxaad is leedahay waa la kulmi doonaa abibtina uu u diidi karo Soomaaliya xukun ku qaadi karo waa ka cuslahay ma ogtahay masalada markii dhibaato kaaga yimaado tegitaankaaga Somaliland waa tii siiraayay maalintii la ma soo geli kartid magac uu ka qaaday waati lagu xanaaqayay ugu diidi karta marka wadadii iyagu marka hore ay ceebsanayeen ay ceebsanayaan ugu dambeyn marka arinta maanta ka dhacday Burco oo qofna lagu dilay dhowr kale lagu dhaawacay sidoo aragtaa marka horta arintaasi waa ilaa waan ka tacsiileynaya dadkii magalan saay dhibaato ku timi samri meena ka siiyo ka dhaawacna ilaahay iyo ku dhaawacna ilaahay naxaasi mataqaan caafimaad waa maamul xumadan bay ka taagan tahay wada ka taagan dhacdadii waad ogtay wixii seelac ka dhacay ogtay dadka fadhiya la iska rasaasay wixii xaqsoor dadkii taageeri ka dhacay wad maqlisa nimankan imanka inta noo yimaadeen ee doorashada hayeen inta dil u dhacday ciidamada RRU ee loo tababaray inay argagixisada la dagaalamaan ay mudaharaadkii ku horgeynayaan haddii waliba imanka aamusu waayaan anu siru daari baanahay waxyaalo kale oo maanta aan arkay in dalkayga khatar ku jiro on leeyahay hoos u dhamaysta ee public ka dhigi doona aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Faysal Cali Waraabe oo nagu soo booqday stuudiyaha magaalada London